Soomaalidu waxay tiraahdaa gari laba nin kama wada qosliso 8 shirkadood baa u soo tartamay 8 shirkadoodba may wada heleen mid un baa helaysay halka waxaan idinku soo dhajinay shalayto markii aan tartanka aan furaynay qiimaha dawladdu ku doonayso qiimahaas oo aad loo soo lafaguray waad ogtihiin inaan bakhaarkiina dawladdu aynay idinkaga iibsanayn waad ogtihiin in goobaha dalka Soomaaliland oo dhan aad geenaysaan sida awgeed wakiiladii dawladda ka socday timirta doonayay iyo gudidii qandaraasyada qaranku waxay isla garteen in $16 wixii ku dhow la siinayo ee qofka shuruudaha buuxiya $16 ku soo dhawaada in uu tartanka ku guuleystay laba shirkadood ayaa qiimihii dawladda u jartay ku soo dhawaaday oo short list noo soo galay shirkadda la yiraahdo Karshe Company short list buu soo galay shirkadda la yiraahdo Saab General Trading Company isaguna wuxuu soo galay short list waxa tartankii ku guuleystay Karshe Company Saab maxaa lagu reebay baa su'aasha la isweydiinayaa ay tahay shuruudihii loo qoray ee lagu tartamayay laba kamida ayay soo ilduufeen waxay soo ilduufeen ban statement may keenin qodobka labaad ay ilduufeen waxa kamida inay cashuur bixiye yihiin 2019kii iyaguna may soo marin wasaaradda maaliyadda shahaadadii ay bixin jirtay may soo qaadan sida awgeed ayaa lagaga helay labada shuruudood qandaraasyada baan ka shaqeynaayo dadka kala saaraayo shaqadayadana dadka ka markhaati furayna wanaagsan tahay xafiisku wuxuu maanta ku helay min madaxweyne la shicib wuxuu xafiisku maanta ku helay tahay inuu xafiisku xubnaanta ku shaqeeya kamid tahay kala xulida ku salaysan shuruudaha runtii mashruuca inay dadku soo xareystaan oo ku tartamaan si transparency iyo cadaalada afurkii Ramadaanta iibsanaysay dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliya Saab General Trading ah waxaan aad iyo aad horta aan ugu faraxsanahay oo maanta niyadeeda muwaadinimo taayada ganacsinimo taayada dhalinyarnimo taayada shaqsinimo kor u qaaday cadaaladda cadaanka ah ee gidaarka ku taala ee ummadda lagu kala saarayay ee gudda Karshe Company ayaan ka metelay anuu shirkadda waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa gudida qandaraasyada garlabada kama waqastay hadii aniga Ilaahay gartay insha Allah in Ilaahay go'asto igu soo duceeyay cadaaladda u dhacday gudida dadaashay wixii lagu tartamayay sicirkii iyo timirtiiba iyo cadaaladii baan marnaba loo kala maqnay